bismillaahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. maanta waxaan sameysanaynaa malawax. waxyaalay ka kooban inta waxay ku jiro 3 koob oo bur ah. inta waa biyo iyo caano oo qandac ay igu jiro. waxaan ku darayaa malabkan wax yar, sokor, 2 xabo oo ukun ah iyo cusbo. intaas ay ka kooban yihiin. ila socda saan isku dar. maasha Allah, hadana burkeena cusbo yaraan ku shubayaa. ku daro ukunta, sokorta iyo malab. masha Allah, biyihii iyo caanaha. masha Allah, balaanaadkana isticmaali doonaa. maasha Allah, waan soo qasanay. smuudkaas aan soo dhigay. wax yaraan yara dhigayaa 10 daqiiqo meelahaas. markaas maasha Allah, haddana birtii aan soo saartay. waxaan ku shubaynaa cajiinka. saan ku soo laba. maasha Allah, haddana waan gedisaneynaa. gudinayaa saliid yaraan ku shubayaa. dhinacaha abyar. saasaan ku soo laba. isku soo noqonaya. maasha Allah, haddana dhinaceena saa u gedisaneynaa. diyaar waa. isku soo noqon. maasha Allah, haddana dhinaca kale u gedisaneynaa. wax yar oo saliid aan lagu shubayo. isku soo noqonaynaa. maasha Allah, dhinaca kale u gedisaa. insha Allah, saan oo ku soo wadaaya. suu noogu soo baxaan isla arkayna. maasha Allah, malawaxeena saan oo ku soo baxay. wuxuu diiday malaha. wax kastaan ku cuni kartaa insha Allah. ani maanta fuulkaas aan u karsaday. aan ku cunaynaa maraqaas. maraqaas u kariyana channelkayga wuu ku jiraa oo digirta ah. waa ka fiirsan kartaa insha Allah. saan ugu cunaynaa maanta insha Allah. haddaa igu cusub tahay subscribe-ka, like, share, comment-kana waa dhiniciina.